Halkani waa Darban Media. Warbixintan waxaanu ku eegaynaa mid ka mid ah tiirka fanka, dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed, Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame. Maxamed Ibraahim Warsame oo ku magac dheer Hadraawi waa mid ka mid ah tiirarka fanka Soomaalida. Waa abwaan ku caan baxay curinta heesaha iyo gabayada. Maxamed waxa uu ku dhashay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco sanadii 1943. Waxa uu ka dhashay qoys faqiir ah oo ka kooban 9 carruur ah, 1 gabar iyo 8 wiil. Maxamed Ibraahim markii uu jiray 10 sano waxa uu aaday dalka Yemen, isagoo waqtigaasi laga bilaabo la noolaa adeerkiis. Halkaas ayuu ka galay dugsi, iyadoo magaca uu ka caan baxay ee Hadraawi uu halkaa ugu baxay. Wareysi uu bixiyay ayuu ku sheegay magaca inuu asal ahaan ahaa Abu Hadra, oo macallinkii dugsiga u bixiyay maadaama uu ahaa nin ardayda aad ugu sheekeeya misna ka qosliya. Markii uu dugsigii ka baxayna wuxuu macallin ka noqday mid ka mid ah dugsiyada hoose ee dalka Yemen. Markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay, gobollada waqooyi iyo koonfur ay midoobeen, Hadraawi Yemen ayuu ka soo tagay, isagoo dib ugu soo laabtay dalkiisii hooyo, gaar ahaan magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Isagoo halkaasi mar kale noloshiisii ka bilaabay, waxa uu ku biiray jaamacadda ummadda, ka qalin jebiyay, oo isla iyadana ayuu ku noqday bare ama macallin, iyada oo ay barbar socotay in uu la shaqaynayay wasaaradda warfaafinta iyo raadiyo Muqdisho. Hadraawi oo noqday gabyaa iyo heesa curiye caan ku ah bulshada dhexdeeda. Waxa uu ahaa nin aad uga soo horjeeda maamulkii militariga ahaa ee majraha u hayay Allah u naxariistee Major General Maxamed Siyaad Barre. Heese iyo gabayo ayuu ku soo horjeesaday maamulkii dalka uu u tiriyay darteed ayaa sababtay in xabsiga loo taxaabo, waxaana lagu xiray magaalada Qansax Dheere oo ah magaalo 90 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed ka jirta magaalada madaxda gobolka Baay ee Baydhabo. Wuxuuna xabsiga ku jiray 5 sano laga soo bilaabo 1973 ilaa 1978. Hadraawi waxa uu xabsiga ka soo baxay wuxuuna ka mid noqday maamulka Akadeemiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed. Xilliyadii bilowgii burburkii iyo dagaaladii sokeeyay, Hadraawi waxa uu aaday Ingiriiska, isagoo kadibna safaro ku soo maray inta badan wadamada Yurub iyo Mareykankaba. Wuxuuna ka qayb galay xaflado faneed ee lagu dhigayay wadamadaas. 1999 Hadraawi ayuu ku soo laabtay Hargeysa. Heesaha ugu caansanaa ee lagu xusuusto Hadraawi waxaa ka mid ah heesta la yiraahdo Beledweyne uu qaaday fanaanka weynaa Xasan Samatar, heesta Hooyo uu qaaday Allah u naxariistee boqorkii codka Maxamed Suleymaan Tube, Jacayl Dhiig Ma Lagu Qoray oo iyadana uga qaaday Allah u naxariistee boqoradii codka Xaliima Khaliif Cumar Magool, Suleeqa uu qaaday Allah u naxariistee fanaankii Maxamed Nuur Griig iyo kuwo kale badan. Qaar ka mid ah heesaha uu sameeyay waxaa lagu turjumay luqado kale ama afaf kale. Gabayadiisana waxaa ka mid ah Gudgude, Dalaaley, Daba Huban oo ah gabay aad u dheer kana kooban ilaa 803 tubac ama beyt. Silsiladii Siinley ayuu ka qayb ahaa iyo kuwo kale oo badan. Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi sanadii 2012 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Princess Claus Fan oo ay ku mutaystay gabayada iyo heesaha waxtarka u leh bulshada Soomaaliyeed. Hadraawi imika
waxa uu ku nool yahay magaaladii uu ku dhashay ee Burco. laba sheekay leedahay maasada hooyay la'aanta mid waxay ahayd anigoo yar oo caruur ah ayaa geel la arooriyey geeli baan raacay aad baan u yaraa u malayn maayo da'deedu 6 jir ka weynayd 6 jirku waqtigaa dee kulleyba nolosha kaalin buu ku lahaayo qofku yaraantaba dee kaalin buu nolosha dee kaalin qofku da' kastaba ha joogay nolosha cid kasta nolosha kaalin bay ku lahayd marka anigu kaalintan kula waxay geelaasi markuu la arooriyo ceelka la geeyo inaan is hortaago oo marba in la sii daayo inta waan karayo da'daasana dabcan dabada geeliba raacay la arooriyay wuu soo cabay wuu soo fulay goor cawaysa ayuu xeradiisii uu ka arooray u yimi xerada beelgoodii ku taalo reerku ka maaragtay waa ka yar durugsan yahay reerka geela haddii ay ka dhigo geel u xareysan yahay intiisa kale way ka durugsantay xerada marka xeradii baa geeli baa soo xiroodayo waa la maalayo maanta oo dhan waxbaa la waraabinay maanta oo dhan geeli baan hortaagnaayo markii la maalay caanihii la dhamay waa la gataati dhacay yariyo aniga iyo raggii waaweynaya gataati dhacu waa marka daalku kugu khasbo inaad istaagi kar weyda aad haddii ay ka dhigo maaragtay aad beelu sidaas waa istuurid weeye haddii gataati dhacaalisaado imanka uun si kooban u sheeg waa la daatay dabeetana goor caweysa baa kaadiyay goor dambe oo malaa sardhool la hurday ayaa caanaha geelu iska caadi kaadi badan bay leeyihiin yaan tooso kaadi bay qabato waxaasay soo kaadi marka hal baan arkay oodii geelu markuu soo cabo waa caada iska jirta habeenka haddii aanu biyaha caws ka dambaysiin waxaa lagu yaqaanaa inuu ka daato xerada xerada ka daato waa inuu daaq mar hadduu biyo soo cabo caloosha biyaha qabow caloosha ku jira waa inuu wax ku haddii ay ka dhigo maaragtay waa inuu daaq helo haddii ay la waayo oo sida toos loo soo xiro xerada u soo galo laasim waa habeenka xerada ka daata soo ma arkin marka waan toosay waxaan sidii kaadi bay qabato soo kaadi baan sidii oo waxaan arkay hal oo jeexday oo qaarkii hore dibadda ula dhacday qaarkii dambena waxayda ku jiro waxaan sidii asha haddaad siraa soo celi meeshu waa meel caanaho waa waqtigii libaaxa oo dhulku sidan imika u araday maahayne dhulku waa camiraayo dugaag oo dhan nooc kasta ayaa jooga marka waxaan saadada shaastada soo celi bahalka areeraha ka ciyaya ee libaaxa la yidhaahdo ku deyn maayo ku qaadanaya tabanayna yar baan intan halkii aan